بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي وحسن نجاه دلسي كلي واحد أكسونيدين حالي إن عن لايف سوق اللي عن كجهد ليني تاريخ ذا دجال كقلبيت كسيتي مسا الصومالي ذا يعن فرت تاريخ ذا وده حيسا يلا هنشاهدوا كحرير كأيلا لذا كلي قضبضي عن كهذا اللي وحن كهذا اللي هذا الكيم مهمة دولية هاي tusaalana waxaan soo qaadanay waraah uu yiri mufakkirka weyn ee masaariga ay fahmi huweydi doctor fahmi huweydi la yiraahdo ee qoraaga weyn ahaa uu lahaa hadalku wax muu taraa hadda ayuu hadalku wax taray 2011 uu yiri 30 sano dabadeed oo hadalka uu ka jawaabay safartan sano dabadeed uu jawaabtay waxa kale sidaa hadal inuu wax tarka uu leeyahay ku tusaya wax qabadku bilowga wuxuu ka bilaabmaa fikrad dadka lagu qanciyo kadib shaqo isku bedeshay oo lagu dhaqaaqo waxaad garanaysaan waqti maanta una technology jirin Facebook una jirin social media una jirin channels ka maartay maxaa satellite una jirin wax jira dunida uusan jirin ayaa Sheekh Ali Khamenei looran jiray intuu isagoo Faransiiska iska fadhiya cajaladihii hore maartay qadiimiga ahaa intuu maartay maxaa dhadayay uu soo duubo soo diray sister ay intuu maartay wadankan Iran uu ku soo diro sidoo uu waday dadkii cajaladaha ay guriyaha ugu dhageysanayeen guriyaha ka soo wada baxeen oo boqorkii la boqorshaah boqortooyada inta la eeg dunida maamushay awoodooda inta la eekayd oo shacabkii oo dhan oo sida dugaaga ugu soo orday oo ka yaacay oo Masar u baxsaday bad garanaysa afba bilaabo baxsho waa nagii waxaad garanaysiin jawhar oo Mareykanka iska fadhiyo oo Facebook isticmaalaya mise channel yar oo furtay oo satellite oo dish isticmaalaya inuu bulshada Oromada uu kiciyay ayna sabab u noqotay inay wadanka maamulkeeda hantaan marka hadalku marka uu xikmadeysan yahay markuu qorshe leeyahay markuu hadaf leeyahay markuu nidaam leeyahay isaga ayaa wax bedela waana qaybta ugu muhiimsan dagaalka qaybta propagandaha la yiraahdo qaybta media la yiraahdo waa qaybta ugu muhiimsan weeyaan wax kasta haddaba xalay waxaan ka hadalnay in dagaalka noo dhaxeeyay ka hor taariikhda aan degalkan wada deganayn oo wada lahayn baa sheeg waxaan ka hadlay dadka qaarkood baa waxay u arkaan markaan qodobka ka hadlayo inaan iska iri waan idin sheegay buuggan xalay nii sheegay waxaan akhrinayaa safxadda page-ka 77 yani akhrinayaa wuxuu ku leeyahay The inheritor of Adal Sultanate of Harar, believed to be member of Grand family, transferred the Adal Sultanate from Harar to the fertile valley of Ausa, a sultanate and the center of Afran political during 17th and 18th century. Somali, along with Afar nomadics, raids affected the Ausa Sultanate. Please. Saad Bugadi. Sheegaya sida uu soo guureen boqortooyadaasi qoyska maartay maxaa dhaday amiirkii Ahmed Guray qoyskiisa har uga soo guureen ay awsho uga soo dageen wuxuu sheegayaa buugu in ay iyagoo isku duuban Anfar iyo Ciise ay dagaal ku qaadayeen maadaama oo dagaalkan dad reemiye ay ahaayeen oo xoolo dhaqato ah boqortooyadan qaybta halka joogtay ay maartay dagaal ku qaadeen dagaalka ay ku qaadeenna ay sababtay markii dambe inay dunto isla markaana ameesha wada deganaayeen ayay sheegaysaa marka taa laga yimaado waxaan nii sheegay in maxay dhadaayay heshiiskii boqor Xayla Salaase waqtigiisii oo ninkii aan nii sheegaynay oo isaguna uu ku qabtay gawaani uu ku qabtay hadalku noo joogna nagu go'ana heshiiskaas waxyaabo badan baa lagu galay in xitaa la kala guursado la isdhex galo dawlad quraatay degmo quraatay oo degmada gawaani la yiraahdo oo ay isla leeyihiin labada beelood ay amartay caasimadooda uu gawaani noqdo halka ay ka kala tagayaan jarar iyo Dreedawa ay ka kala tagayaan halkaas ay noqoto marka inta taa la gaarayo inuu midna gawaani ciidad bixeeda uu daaqo midna ciidad bixeeda uu daaqo waa 1940yadii waxaan ku sheegay buugaasi uu qoran yahay huwad wuxuu warad baa leeyahay tacaaqufka nolosha buuga leeyahay oo nin ambassador soo ahaa oo xilal badan soo qabtay oo duqa magaalada ee Addis Ababa ee balaanka casriga waqti Xayla Salaase ninkii dajiyay weey buuga
qaybtaas wuxuu kaga soo qaadanaya heshiiskaas wuxuu leeyahay haddii wax wanaagsan bago adraagot wax la yiraahdo oo wanaagsan oo noloshayda falay haddii aan maartay on ku farxi lahaa haddii ay hirgeli lahayd arrintaa baa jirtay laakiin isla markiiba waxaa la iga yeedhay markaa hawsha aan ku jirray lagu duceeyey ee waa heshiiskii la kala qaatay Addis Ababa la iga yeedhay kadibna waa la bedelay halkaa waxay ku tusaysaa xitaa dawladda Haile Selassie inayna daacad ka ahayn dadkan inay heshiiyaan laftirkeeda oo ninkan uu leeyahay maartay maxay dhaday hawl aanan maartay maxay dhaday aadan lagu dirsan baad gashay in la yidhi oo kale ay ku tusaysaa shaqadii waa la iga bedelay gura meel kale la yidhi laakiin noloshayda meel aan ku farxo damiirkaygu ku raaxaysto heshiiska aan dadka dhex dhigay ay isku jeclaadeen ee mustaqbalka inay isguursadaan is dhaldalaan sababay waxaan kaga faraxsanaa oo noloshayda kaga farxi lahaa ma jiro dadkaasina raalli bay wada ahaayeen dad quraatay bay ahaayeen wuxuu sheegayaa buuggan ingiriiska aan sheegayay inay xulufooyin xitaa wala lahaayeen canfarta iyo ciisuhu iyaga dhexdooda inay reereer xitaa oo qabiil canfari iyo qabiil kale jufo kale ciisaha ahi intay midoobaan ay canfarta kale ku duulayeen mise ciisaha kale iyagoo wada midaysan ku duulayeen waxaan sheegay in maanta qabiilo waaweyn oo reerahan maartay maxay dhadayay ciisaha dhexdeeda ay ilaa hadda ay canfar iyaga oo maartay canfar sheeganay ay degan yihiin shirka hawaasan ka qayb galay xagga dambe niga sheegi doonay ku yar oo Rashid Samire madaxii arrimaha SBG hore ee gobolka City uu abti u yahay ayaa noo yimid hotelka noogu yimid Soomaaligu yaqaana ka yari wallahi hadda way sheekaysteen walaashay baa dhashay buri intaan meesha joognay nuumuna sheegin markaan magaalada ka baxnaa wuxuu ninkan ma garanaysa ninkan uu waa nin tolka ayo bibi maantana waa canfar sagii walaalihii oo dhan halka iska degayiin waladba ilaa iyo samare ka wada shaqeeyaan buu canfar bay xisaabsan yihiin wax xaqiiqna ama soo taabanaa ku sheegay marka waa kow dadku markii hore dhulka waa la wada lahaa waa laba markii la kala go'ay laftirkiisa waa la isku haray oo xaggan iyo xagganba waa la wada joogay taas haddaba hadday tahay arrinta kale ee ku saabsan haddaba dagaalkan inuu isagu dadka sidaas ah ee markii hore biyo iyo baad uu isku dirirayay in ay dagaalku siyaasad isku bedelo ma waxay ku jirtaa ma danta Soomaalida ma danta canfarta arrinta xagga dambe kaga hadlayna ayuu dagaalkan danu yahay anu waxaan aaminsanahay dagaalkan canfarna danu maaha Soomaalina danu maaha laakiin Itoobiyada buuraleyda ee dhulku ku yar yahay ee beeruhu ku yar yahay ayaa arkaya dhulka inta leh ee dad tirad yar ay joogaan khayraad badan leh in dadkan sida isku cunaan inta isku dhamaadaan sida isku leynayaan oo ay ku baaba'aan kadib iyagu dhulka inay qabsadaan استراتيجية من الفهمان قصر أو مهمة مركا وقت جي ملص حاجري جنباريو أجار باكل جب هذا دتك حسب الصحراء وأفر تواوينا إيو صراع كوعها شنطة كلا شنطة كلا كوعها دكوجو ولا قادني هنتدود ولا دعي خيرات كوجو ولا وقف ولا استعمالي وحا أركتي أمين سيه دتك دولك جوجاي دتكني إن دولك إثيوبيا هي دتك سأين إثيوبيا هي أنا تصور أنت وحان مركا قاركو قصص لا عن فرق قادان يسوي خريطات أنت سوق قادان أورانيا وحي أورانيان وتا عنده فئة عديتو يا قرب عيسى برتمها يا أفار إمبرتنو يا لوط يا أورانيا ولا فيرس برتمها عن فرق يقول حين خريطات بسوق قادان هو خريطات دنيا سميوته وين سويدس وين سويدس sagaalka kale intay yiraahdeen anu halka bay khariidadii tahay qarada sawirkaygu noocan buu yahay kan ba noocan buu yahay intuu la yiri khariidad ay soo wada sawirteen horta ma jirin canfariyadu waxba garaneyn Soomaaliduna ay siyaasadda Itoobiya wax ka garaneyn baa nidaamkii kililada loo bedelay canfar waqtigii dargiga qayb Tigray kilil bay raacsanay qayb waxay raacsadeen maartay walay raacsanay qayb shawa ay raacsanay qaybna hargey bay raacsanay markii nidaamka federaalistiga ee qowmiga ku salaysan iyo wixii oo dhan la soo jaabayo dawladda canfar la yiraahdo laga dhigay annagu harargay baan yaa wada raacsanay Soomaali hadana yaa wada raacsanay wala fiirso dadka saa loo jaabay bal ar yaa ii sheegi mar dhaweyd ba Oromada iyo Soomaalidu ay xuduud kala sameysteen Itoobiya wax la yiraahdo xuduud kililada dhexdeeda oo la kala sameysay ma jirin Oromada iyo Soomaalidu dhawaan bay kala sameysteen dirdaba iyo maartay iyo gobolka City Abdiilay markuu dhici doono ayaa la kala sameystay waxaan garanaynaa in dirdaba qabuurta xabashada maxaa la yiraahdaa Shinida maqaabir baa la yiraahdaa دروك هلا لكن كوجك تواد قرنيسا أنت نيمك الله قدر جورمان لسي ولا قرنية وتاريخ عد لكن بيكيا ما أنت يلا وجامعة دبدي ده أي حدكم مريا واد قرن كرتا هالكوكو كله شو ويعضها ما أنت لكن هدي خريطة دن أي رقم حارته سميين ضد إن يدل ما راح يسكوا لي أنا الرمان هدي اللي أجو درنا باوية صو درنا مين كلا ما كلا سمين بل درنا بعرض جوجل جليه وجيب يستكو أجا خريطة دن يرى أور كوا أجا كي كوجك أجا حد كينا جامعة أكتر ده لقوا كلا سميست
khariidada haddaad weynaysid ood Google Earth-ga ku eegtidna laamiga asfaltiga Shiniila Agmar ayay ku joogtaa labada wadan laakiin ay caasha heshiisaan qoran xadku halka ku jooga marka khariidadan la soo qaaday markii dhaweyto baan anagu ku baraarugnay haddaan deegaanka Soomaalida nahay markii la sameeyay tirakob hal la sameeyay liidi baan loo keenay xalidu saxiixa tirakob baa la sameeyay khariidadii gobol iska dhulka la iska daa gobolkii City-o gobol inta badan maxay dhacday qaybtan hoose ee Gablalu mise Xaarisa oo canfar raacsan inta u badan maartay maxay dhacday afdam oo canfartii la raaciyay ma ay soo qaybna Oromiya la raaciyay qaybna la raaciyay muxuu canfarta la raaciyay Shiniila oo xitaa la soo gaaray gobolkii Shiniila oo ilaa iyo meeta agteeda la soo gaaray saxiixana lagu yiri waxaan ku nidhi war intaasoo qabaleeba intaasoo doorasho ay ka dhacday hadda ka hor oo dadkaygu degan yihiin oo maamulkayga ka ah cundufiya cadeyti waxaan laba garay dhulkan imika maartay maxaan dhaday oo bal isku haysta leeyahay khariidan maxaa keenay waan ku rafacnay qasab waxay noqotay in GPS dib loo soo gasho taasi waa kow bal yaa ii sheegay canfar iyo Soomaali xuduudda canfarta iyo Soomaalida goorma la dhex maray oo xadku waa halka uu ku joogaa leeyahay heshiiskan la maray ee waqtiga Cabdiilay la galay heshiiska laftirkiisu qabiyo aha waxa sida ay sheegayaan heshiiska waxa ka dambeeyay markii la yiri saddexda magaalo la raaciyay saddexda magaalo oo qabalo gaar ah laga dhigay qabaleeyo gaar ah laga dhigay waxa heshiiska lagu ballamay in dib dambe la isugu yimaado labada kilil iyo federaalku oo xuduud loo sameeyo oo la yiraahdo saddexda magaalo ciidad dhacna intaasoo mitir intaasoo kiilo bay maartay maamulaan ciidad baxna intaasoo kiilo bay maamulaan in la yiraahdo la doonay oo qorshaha waxa la watay in la yiraahdo 80 kiilona la soo galiyo laakiin ilaahay tiisi meena sababin sidii bay ku duuntay marka khariidadan bartamaha ku taal aadleedin iyo horta kula sameeyay waa kow laakiin la sameeyna waa been faafan qayb badan baa saa Oromiya loo dhex gashay laakiin imaashi la kala calaamadeystay kililadu wuxuu xeerka Itoobiya dastuurka Itoobiya wuxuu dhagayaa qowmiyaduhu marka ay isku qabsadaan xuduudaha meelaha ah iyagu inay ka heshiiyaan oo heshiis ay ku heshiiyeen ma oranayo GPS inta la soo qaato waa halkan baa anigu GPS iyo xariiqday lama oranayo wuxuu oranayaa qowmiyaduhu waxay ka heshiiyeen iyagu intay labada kilili ay heshiis ka galaan meesha ay ku heshiiyeen iyagu dhagaxa dhigtaan haddii ku heshiiyeen House of Federation-ka ayaa loo xil saaraya isaguna shacabka halka degan buu ugu dambeynta afti ka qaadi dhinacay rabaan buu marka raacaya dastuurku saaburiye marka adeer sheekadan yar ee la soo bumbunay khariidad lala boodboodayo canfaray wax niga shaqeynaysa ma ahan leeyahay runta ha noqoto arnacaas waa dhinaca taariikh waan ka hadalay waxa ugu weyn ee bini aadan isku aamino annagu muslimiin baan canfartu waa islaam annaguna islaam baan dadku waxa ugu dambeeyay ku qancaano waa diinta bal diinteenu maxay ka leedahay arinta mulkiyada dhulka quraanka kariimku rabbi tabaaraka wa taala wuxuu leeyahay innal arda lillahi yurithuha man yashaa'u min ibadihi arlada ilaahay ba iskale mujira dhul la yiraahdo made in Afar iyo made in Somali made in America mujira ilaahay sidoo adiga dadka bini aadanka u abuuray ayuu dhulkana u abuuray dhulkana ayaa loo abuuray mareer gaar loo abuuray may bini aadanka oo dhan baa loo abuuray wuxuu leeyahay ilaahay cidda uu doono addoomaheega ah ayuu dhaxal siinaya eegbal u fiirsay ayadu waxay cadeynaysaa reerka maanta halkan degan ilaahay inuu ka baabiin doono oo reer kale bari keeni doono sunnatullah sunanka ilaahay shuru ilaahay isaga garanaya shalay hunuuda cascas ayaa mareykanka deganeed mareykan qolyahan Irishka iyo reer galbeedka halka bay tageen maanta wadan maartay maxay reer galbeedku ay leeyihiin waad garanaysaa dhinac ummadaha ugu badan ee isriixriixayna waa xoolo dhaqatadu dhul ballaarsi isku riixriixdaan laakiin daaq ayaa isku riixriixa inta badan keenaya diinteenu maxay dhigaysaa marka arlada maxaa lagu mulkiyaa arlada waxa lagu mulkiyaa isticmaaru al-ard arlada huwa alladhi ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha abu rabbi tabaaraka wa ta'ala ilaahay isaga ayaa arlada niga beeray wuxuu ni amray inaad amirtaan culimada muslimiinta marka fiqh idilo waxay leeyihiin fiqhu ihya'il mawta arladii dhimatay sidii loo nooleyn lahaa arlada yaale kan nooleeyaale maxaa lagu nooleynaya inaad amirtid ilaahay saddexda shay uu abuuray mid kamid ah tahay maxaa lagu amiraa inaad beer ka sameeyso lagu amiraa inaad guriyo iyo magaalo ka dhigtid oo aad maartay nolol ka sameeyso lagu amiraa ceelal iyo meel aad maartay binaadam ka cabaan baa lagu amiraa bal ilaahay baa nagu dhaarshay magaalada ay canfari deganeed laga qaaday sheega ay dhisteen bal ilaahay baa nagu dhaariyay beerta ay canfari lahayd laga qaatay sheega
bal ilaah baa nagu dhaariyay ceelka ay lahaydeen laga qaado sheega ceelashan waani hadeer inii sheegay dhammaan waxay ahaayeen ceelal waxaad garanaysaan beesha akishaha la yidhaahdaay waa waxa weeyaan dir ciise madoobe dir akishan oo akisho dir weeyaan waa ilmaadeer baan ahay iyagaa naga badnaa waqtiga ilaahay siduu dunida suu doon u bebedelaa iyagaan maarata maxaa dhahday boqortooyada lagu hoos noolaa waqtiga ceelasha iyagu ay qodeen bay canfarna ka cabtaa annaguna ka cabnaa kuwa dambaan qodanno iyagu qoteen annagu qodanno inagu jiraan iyagaana qiraya arrintaa oo dhan qiraya haddaba lahaanshihii dhulku qaabkaas buu yahay haddii ay sidaa tahay waxaan murtida ku soo gabagabaynayaa kulankii hawaash baan markii ugu horeysay in canfar hor fadhiisto shirkii hawaash ramadaankii ka hor aan ku gallay shirkaa wax badan baa iga dilaacay ciidanka makalaakiyaga ninkan maanta na barakiciyey ee Cornel Adisu la yiraahdo iyo nin kale oo Cornel oo isaguna federal police ka socday shirka noo hay gobolka city mas'uuliyiintooda maamulada degmooyinka afdam iyo maayso iyo canfarta zoonanka jaarka nalaa iyo degmooyinka maamulkooda oo dhan bay yimid isagu noo yeeray wariyada ordo dadkan dhulka siiyo un bunii anu xeerkii Itoobiya ku dhaqmaya ilaa inta heshiis kale u dhacayo dhulka ku wareejiyay waxa ma naqaano markaan isku kala kacnaan isku diidno isku fahmi weynay ayay qadan noo sameeyeen maartay mas'uuliyiinta canfarta qadadii ay noo sameeyeen iyaga way naga tan Soomaha annaga waa safarsan wada sheekaysanayna waxaan fahmay markii shirka ay iyaguna dhex fadhiyeen sidii aan isku haysanay iyo annagu markaan wada qadaynaynay sida aan maartay maxay dhadaayay isugu soo dhaweyn ciriya dhul bay kala ragii baan sheekaysanay waxaan ku yiri horta dhageystaan ku yiri mas'uuliyiintoodii baan lahayn waxaan ku yiri war Ilaahay baa nagu dhaariyay maanta canfar dhul yaraanimay haysa war Ilaahay baa nagu dhaariyay maanta Soomaali dhul yaraanimay haysa dhul yarinama haysatee halkan baa cidhiidhi noqotay baan ku yiri ya waa shaacirkii waa kiilaha carabigaha la'amruka ma taqat ardun birijaliha walakinahu uqulu ar-rijali tadiqu waligeed arla bini aadan ku filaan weyda lama arag laakiin cidhiidhiga iyo filaansha lahaanshaha waxa keenay waa aqliga bini aadanka halkan haduu cidhiidho arlada oo dhan kuma deeqayso halkan haduu balaaran yahay mitir yar baa ku deeqay rabbina tabaaraka wa taala wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay waja'alna al-ardha kifata ahyaan wa amwata arlada waxaan ka dhignay tu ku filan kooga dhintay iyo kooga noolba halkan laakiin haduu cidhiidhi noqdo dunida oo dhan kuma deeqayso horta taa ogaadani marka annagana halkan baa cidhiidhina noqoto inigana halkan baa cidhiidhina noqdo halkan cidhiidhi haday ku noqoto waxaad noqonaysaa sidii ummadihii hore ee markay aqoon la darteed iswada xasuuqi jiray isbaabiin jiray intuuna jihaadku soo degin ee kumanaanka sano noola ee aqli yari darteed waxa uu sameeyay laakiin maadaama oo bini aadan kan dambe uu bi'ada la falgalay aqligiisu ka bacaya aqliga marka wuxuu ku baraya aqliga reer galbeedka keenay Mareykan inuu dunida oo dhan intuu isku keeno oo wadan ka dhigo caasim maartay dunida oo dhan uu maalo war ma anfar iyo Soomaali ba intay midoobaan ay danahooda inay ka shaqeystaan kari waay dagaalkan ayuu daniye maanta anfar intay haysato ma ka manaafacadsata horta bal dhageyso Soomaali intuu haysto mu ka manaafacadsada runtaan ka hadalade magaalooyinka iskada Soomaalida laba dhaantay magaalooyinka anfarta hadaa tagtid hal magaalo xitaa jaadka ugu yaro Itoobiyaan ba iibinay hay xaqiiqdan isku sheegno ayadan ugu tahay marka waxaan ku yiri war dagaalkani ma anagu dan noo yahay waxaan ku yiri war kuwa garmanu ka tagay war kuwa cundufa ka tagay war kuwa cadeyti ka tagay war kuwa gawaani ka tagay ee canfar iyo Soomaaliya Djibouti markay isku tagaan way wada sheekeystaan way wada kaftamaan way halkan marka la joogo la isku leeyahay halkaana mid loo yahay la isku leeyahay halkan wax isku keendiraya joogo inaad garitiin marka halkan wax isku keendiraya ayaa jooga ka isku keendirayay canfarna uma danaynayo Soomaalina uma danaynayo wuxuu rabaa inaan isku baaba'no markaan isku baaba'nana uu dhukeena intuu qaato isagu ka faa'iideysto rabaa hooy marka war ma aqligan ka shaqaysiina mise gacan bila aqligan ku shaqeynaa mid ogaadan ku yiri horta runta ma isku sheegnaa maanta haddaadna soo qaadiin dadku hadday jaar yihiin waligood ma kala maarsamaan haddaad maanta intoodna soo kaxaysiin aad nagu shubtiin ilaa Zaylac iyo ilaa Muqdisho ba nageysiin soo halkaan jaar kuma haano halkaan isku madiraynaa ku haddana anagu ni soo rogno on Eritrea iyo casab nigeyno soo halkaan jaar ku haan meena isku leyn mayno soo rarma waxaa la yiraahdaa gacanta aad goyn kari weydo waa la dhunkadaa dagaalku xal ma aha
maxaa yeelay meel kasta haddaan sidaa u riixdina waa la isdiriiruun haddaan ku soo riixana waa la isdiriiruun xalku markaa wuxuu ku jiraa in la heshiiyo dhulkuu naga badan yahay ilaahay baa iskale annagu saantiin yaroon ku darsannay ma jiro xaqiiqada asal ahaanna waa nii sheegay 10 qarni ka hor in dad quraati lahaan waan kuu sheegay qarnigii 16aad in meel saldana quraati lahaa waan kuu sheegay isticmaalka iska daa wax kale iska daay war abaal la isku galay baa jira xitaa Soomaalidu marka runta laga sheego canfarta abaal bay ku leedahay درجي مركو عن فرت حسوقي هل كيكو بحث على مري حلكو جوجي مقدشة ما ينهي وحو جوجي جبهة حورين عن فرت هل كي لقو سمي أف عن فرق هل كي لقو قري أفك لقو قري تي في هذا يا نيس يا هل كن يلوض واردت كاتل كينه ولا هنا أنا هندنا نو رون مركو لقى هذا استجيد كي يسلينتو إني كنا تطبض واني اللي قال لي واجهل النمو أنا كنا تطبض واني قال لي واجهل النمو أنا رون تهدان كوش يجو من الصومالي أنا هاي أو قبل كسيتي كسوجي ذا awowgayga shanaad canfar baadish awowgayga 12aad canfar baadish waa taariikhan waxaan ku sheegay laakiin haddaan idhaahdo waan argoosan ummad aqli argoosi uu ku jiraayay horumar kama shaqeyso waxaan la iska dhaafan leeyahay haddaba waxaan awoodnaa boqortooyadii kuusheena laga baabi'iyay ee intay samatiigu intay nagu soo duuleynayna qabsadeenayna adoonsadeen war waan midayn karnaa oromo iyo sidaamo iyo canfar iyo Soomaali inta mid laga dhigo Itoobiya naga maamuli karaa laakiin si aanad u maamulin waxaad ya jar adaa la isku mashquulinaya war hooy canfarey war hooy Soomaali war mis aqligu ha shaqeeyo mis xoogu ha shaqeeyo cudud laba reer oo kala adkaani karaa waligii ma jiro iniguna haddaad konton naga dishiin barina dagaalku waa maxay waa sijaal buu rasuulku bayidheek yawmun laka wa yawmun alayk maanta adaa lagu tirtiri barina ka kala tirtiri maxaa soo kordhisay haddaan maanta 100 canfar dilo oo adiguna aad bari 100 Soomaaliya dishid maxaa soo kordhisay wuxuu igu yiri maartay maxaa dhaday gudoomiyihii gobolada kamida asxaame inuu haabaan filaya oo meesha wada joognay wuxuu yiri shirkii golaha dhexe ee Addis Ababa ayaan Umar Meydana ku kulanay wuxuu yiri عمر بن كل ورسك ورنا ورده ودانو دولديبا maamulkii baan iskaga tagay oo maxaad uga tagtay dadkayga oo dhan marka xasuuqday maxaan maamulaaban ku dhig wuxuu yiri aniguna dhinaca ma dabka kaga soo shiiday adiguna dhinaca ma dabka kaga soo shiidaysay soo labadeennaba jahannamana la geyn maayo bal fiirsan bal aqliga garanaya in dadkaas waxa falka aan sameeynayna in naar lagu galayo muxuu u garan waayay in nolol lagu sameeyo war sida loo dhinto hadii la yaqaano sida loo noolaado maxaan u garan weyn ya al hayat fi sabilillah يا الموت في سبيل الله لبد والله ودو إلهي جاح إن إلهي وددي سلقون نولاد وجاح إن ودد إلهي اللورد أنت لبد ولا بجد لبد أجدنا ولا بجد أمارته محد ذلك كل جينا هذا جرنيس والحقيقة عن كهذا الله رنت عن سكوت شاقنا عد كعد كان كرتاي ما شرتو سيدي دون هلا سكوت كندرو لكن حقيقة عندنا قوم بايسلة عندنا قوم باجارة جار ما كلام مارمو oromo shalay waan isdiriiray maantana waan heshiinay inay danteenu heshiiska ku jira la garto war canfareeniguna taa garta haddaad garan weydiin maanta dadkan ilaa diriirayay waa dadka yaree jooga maartay jooga inta yaree cundufiya cadeyti dagaalka wali afdam ma gelin oo ma aysa ma gelin oo sagaalka degma ma gelin oo idinku musallaskii maartay canfarta afar triangle inay qaar fikirka aaminsan dagaal ku jiraan ognahay لكن دجالكو هديو سي خرادة وبلارن أنت نكبلارن وارنتو ونبلارن حكمة عقل واشقيان ليه كل موضوع عن تاريخ ذا يكون سابسا دي بيان وهل دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.